السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد أيها المسلمون عباد الله، يكثر في أحاديث الناس اليوم ذكر الفوز والفائزين والحديث عن أسبابه، ولكن ينحصر حديثهم عن الفوز في متع دنيوية زائلة وأمور ذاهبة فانية. فوز في مسابقات، وفوز في اختبارات، وفوز في معاملات، وفوز في الوصول إلى مناصب. ويغيب عن أذهان كثير منهم الفوز الأعظم عند لقاء رب العالمين، وهو الفوز بجنات النعيم وبرضوان رب السماوات والأراضين، والفوز بالنجاة من سخط الله سبحانه وعقابه. هذا المعنى يغيب عن أذهان كثير من الناس بسبب الانهماك في ملذات الدنيا والخوض في زينتها. وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. وعلى المسلم الصادق والمؤمن الحقيقي في مثل هذا الوضع الراهن أن يكون أكبر همه هم الآخرة، وأن يكون أعظم تفكيره في الفوز الأعظم وأسبابه. أيها المسلمون عباد الله، اعلموا أن حقيقة الفوز حصول المرغوب والنجاة من المرهوب، وكمال هذين لا يحصل إلا للمؤمنين الفائزين بدخول الجنة والنجاة من النار، لأنه لا مرغوب أعظم من الجنة ولا مرهوب أشد من النار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تفكر أيها العبد المسلم في هذا الموقف العظيم من مواقف يوم القيامة، يتبين لك حقيقة الفوز. فالفائز الحقيقي هو الذي فاز فيه، والخاسر حقا هو من خسر في هذا الموقف. أيها المسلمون عباد الله، maanta dadku waxay aad uga sheekeeyaan
waxa loo yaqaanaa alfawz oo ah guusha iyo horumarka iyo qofku inuu gaadho wuxuu hiigsanayo uu jeclaa. arrintaasi asbaabteeda iyo wadooyinka loo marana aad bay u hadal hayaan. hase ahaatee sawirka ay fawska ka haystaan, guusha ay ka haystaan iyo waxa guushu ay ula muuqataa waxay ku urursan tahay arrimo adduunyo. adduunyada raaxadeeda iyo naciimkeeda ah mid suulaya oo dhammaanaya. haddii dadku maanta ay ka hadlaan guushoodu waxay ku saabsan tahay qof ku guulaystay tartan la galay, ama qof ku guulaystay mansib iyo madaxtinimo uu socday, ama qof ku guulaystay waxbarasho uu hiigsanayay halkeeda u sarraysa inuu gaadhay, ama qof ku guulaystay ganacsi iyo macaash uu doonayo uu jeclaa. dadka in badan oo ka mida waxaa ammaankooda ka maqan guushii dhabta ahayd, hadal haynteeda iyo ka hadalka asbaabteeda iyo waddooyinka loo maro. guusha dhabta oo in lagu guulaysto ilaahay raalli ahaanshihiisa subxaanahu wa tacaala fi dunya walaakhira, iyo rabbi subxaanahu wa tacaala jannadiisa iyo naciimka u dhigay. guusha dhabta oo qofku inuu ku guulaysto inuu ka badbaado ilaahay cadhadiisa iyo rabbi subxaanahu wa tacaala cadaabkiisa oo aaraad ka dhashay cadhadiisa. arrinka noocaasi dadka in badan oo ka mida maankooda inuu ka maqnaado, hadalkooda iyo sheekadoodana inuu ku yaraado, waxa sabab u ah adduunyada jacaylkeeda oo dadka quluubtooda aada u galay, iyo indhahoodoo haya dhaldhalaalkeeda iyo quruxdeeda, iyo naftooda oo jecel macaanka ay leedahay, kaasoo xaqiiqadiisu ay tahay sida ilaahay noo sheegay: wama alxayaatu ddunyaa ilaa lahwun walacib. nolosha adduunya waa maararow, waa ciyaar. wa ina addaara alaakhirata lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun. nolosha aakhira ayaa nolosha dhabtaa ah haddii dadku ay garanayaan. waxa waajib kugu ah ayuha alcabdu lmuslim inuu noqdo hamigaaga u weyn iyo waxa u badan aad ka fikirto ee aad ku seexataad kusoo toostee warwarka kugu hayaa hamu laakhira. aakhira ma waxaad ka mid noqon doontaa min alfaa'iziin, mise waxaad ka mid noqon doontaa min alkhaasiriin? fikirkaaga u weyn waa inuu ku saabsanaado fi lwusuuli ila alfawzi alacdam wa taxqiiqi asbaabih, gaadhitaanka guusha u weyn iyo xaqiijinta asbaabteeda. iclam ayuha alcabdu lmuslim alfawzu alacdam, guusha u weyne u sarraysaa inay tahay xusuulu lmarguub waannajaatu min almarhuub. waxaad jeceshahay inaad hesho, waxaad ka baqaysa aad dhibsanaysana inaad ka badbaado. wa kamaalu haadayni laa yaxsulu ila lilmu'mini alfaa'izi biljanna annaaji min annaar. labada arrimoodna uma dhammaystirmayaan qof mu'min oo janno galay naarna ka badbaaday mooyaane. waayo wax la jeclaadoo janno ka sarreeya ma jiro oo makhluuqaadka ka midi. wax laga baqo oo la dhibsadoo naar ka daranina ma jiro. ilaahay baana subxaana wa tacaala inoo sheegay guusha dhabtii inay tahay inaad ka mid noqoto kuwa jannada galay ee naartana ka badbaaday. kullu nafsin daa'iqatu lmowt, haadihi hiya almuqadima. waa hordhacii taasi, naf waliba geerida waa dhadhaminaysaa. in kastoo cumrigaagu uu noqdo iyo in kastoo daadaadu ay gaadho. wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama. yowma alqiyaamana qof walba waxaa loo oofinayaa iyadoo aan waxba laga dhimahayn wixii uu shaqaystay. faman zuxzixa can innaari waudkhila aljannata faqad faaz. qofka naar laga fogeeye janno la geliya isagaa guulaystay. ilaahay wuxuu tilmaamay waxay dadku guul u yaqaaniin adduunyada inta ay joogaan guushii dhabtahayd inaanay hayn. wama alxayaatu ddunyaa ilaa mataacu lguruur. noloshii adduunyo dhaldhalaalkeeda, macaankeeda, quruxdeeda, gaadiidkeeda, guryaheeda, dumarkeeda, caruurteeda, lacagteeda,
dahabkeeda, doolaarkeeda, fidadeeda waa mataacu lguruur, waa sahay yar oo wax magaratadu ay ku dagmaan oo guusha dhabta ay ku ilaabaan oo ay ku seegaan. ayuha alcabdu lmuslim, ka fikir mowqifkaasi. dadka qaarkoodna khasaarihii dhabta ahaa ay cagaha la gelayaan, qaarkoodna guushii dhabta ahayd ay gaadhayaan. ay kala caddaanayso qofka ah guulaystaha dhabta ah iyo ka xaqiiqa ahaan khasaaray. nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam mawaaqiftaasi inooga warramay, qaybaha dadku ay yeelanayaanna inoo sheegay. facan abi saciidin radia allahu canhu qaal qaala الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam uma yudrabu اljizru calى jahannam, jahannama biriishkii la duldhigaya, الصراط وتحل الشفاعة، إلهي با سبحانه وتعالى فصحي وقلاني إلا شفاعة قاضو، ويقولون اللهم سلم سلم. dadka u sareeya u qiimo badnaaba sidaa odhanaya markay arkaan xaaladda adag ee ka jirta yowma alqiyaama. ilaahay owna badbaadi, ilaahuna badbaadi. qiila yaa rasuula allahi wama ljisru, waxa lihi rasuulka ilaahayow biriishkaasi waa maxay? aad tidhi waa la dhigayaa. qaala daxdun mazillatun, biriishku waa mid aanay cagtu qaban oo laga siibanaayo. fiihi khataatiif, dhufatooyin dadka qaar dhufanaya hareerihiisa yaalla, wa kalaaliib, iyo kalbado qabanaya cidda ilaahay u amray inay qabtaan. waxasakun takuunu binajdin fiiha shuwayka yuqaalu laha sacdaan, waxaa rasuulku kalbadahaasi uu ku suureeyey oo tusaale uga dhigay dhirta qodaxdoodu ay soo qallocdo sida cadaadda oo kale, oo qofka haddii ay sudhato ay qabsato ay adag tahay sida uu isaga furfuro. waayahay siraadku waa ka noocaasa, oo kuwa saxaabada qaarkood yidhi adaqu min ashacri wa axaddu min asayf, xabadda tinkaa waa ka dhuuban yahay, seeftana waa ka afbadan yahay. dadku siday u marayaan. wuxuu ka warramay nabigu calayhi salaatu wasalaam muuminiintu say u marayaan. waalmu'minuuna anfusuhum yatafaawatuuna fi lmuruuri cala siraat, muuminiinta laftooda ayaa ku kala duwan qaabka ay u marayaan jidka siraat. fayamuru lmu'minuun ka tarfi lcayn, muuminiinta qaar ilbidhiqsi bay ku marayaan. wa kalbarqi, qaarkood sida hilaac oo kale. wa kariix, qaarkood sida dabayshoo kale. wa katayr, qaarkood sida shimbiraha duulaya socodkoodoo kale. wa ka ajaawiidi alkhayli waalrikaab, qaarkood sida dadka saaran fardaha iyo geela gaadiid ahaan loo isticmaalo. fanaajin musallamun wa makhduushun mursalun wa makduusun fii naari jahannam, dadka waxay u qaybsamayaan kuwa badbaaday oo ka badbaaday kalbadaha iyo dhufatooyinkaas inay qabtaan oo jahannamada ka hoosaysa ay ku tuuraan, walow maritaankoodaasi haba kala duwanaado, iyo kuwa kalbadahaasi ay qabteen ay xagxagteen ay camcamiyeen, laakiin intaa dabadeed la sii daayey. wa makduusun fii naari jahannam walciyaadu billaah, iyo kuwa intaa ay qabteen kalbadahaasi naarta jahannama lagu raseeyey. tafakar ya cabdallah fi hada almowqif, fainaka bilaa shakin miman yadacu qadamahu cala hada asiraat. ka fikir mowqifka noocaasa, shaki kuma jira inaad ka mid tahay dadka lugtooda saari doona, dulmari doona. walaa tadri min ayi lfiraqi takuun, saddexdaa qole nebigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam, qolada aad ka mid noqon doontana garan maysid, laakiin inaad maraysa waa mid la hubo. wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina ataqow wanadaru alظaalimiina fiiha jithiya. ayuha alcabdu lmuslim, yowma alqiyaama ayaa guusha dhabta ah iyo khasaaraha xaqiiqadiiba u yaallaa. famaa hiya sifaatu alfaa'iziin alatii naaluu biha alfawza alacdam, kuwa guulaystay sifaadkoodu waa maxay? sifaadka ay ku gaadheen guusha dhabta ee guusha weyn.
الجواب في كتاب الله، ففيه آيات جمعت أسباب الفوز وصفات الفائزين. جوابت كتابك إلهي بكتاب الله، إلهي كتابك سوحك يا الله آياته سعاد قيحي أسباب تقوشه هي صفاتك يتلمامها إليهين ذاتك قوشها سيقاري دونا. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. كإلهي أضيعه السيد إلهي أكدون يياله النبي محمد عليه الصلاة والسلام أضيعه ويخشى الله إلهي كبق سبحانه وتعالى يسهر تاق إلهي بقها سيو علمي أقون كل سن ويتقه إلهي عذاب كيسا وحسك حكسية وإلهي دينتي سكو عمل فلا فأولئك هم الفائزون كواسار قول استياشا نبتع 4 صفات ذكرها الله في كتابه نال بها من نال الفوز وأفر صفات وإلهي كتاب كيسا وكشاقي وددك قوشا نبتع قاري أي كو قاري أفرتا صفة هوستك علامة يا عبد الله قنطو يعني نقول إنه وحدة هنا مرة وإن بدل نقصها نغنقضة لكن لابد أن نقف عندها ونفكر فيها وأن نعزم على العمل بها وإن نسد بيسد التاقنو وإن آدوغا فكرنا صفات كالنوعاسة وإن قوان صنو إنه إلهي تلسارنا صفات كاسينا إنه يلانو إنه كعمل فالله. الصفة الأولى وطاعة الله إلهي باكو ياري سبحانه وتعالى وحنا وكوغو ياري وحنا واكاغا ياري إن هذا إلهي يرمدي سادة جيبته. صفة اللبد وطاعة رسول الله ونبي محمد عليه الصلاة والسلام إن هذا الضيعه. صفة أفراد وخشية الله ومن أعمال القلوب التي تثمر أعمالا للجوارح طيبة. خشية الله وأن إلهي كبغت سبحانه وتعالى بقى علم كل سنة وقلبي قصد بقاها سوء قاله كدبنا حق إلهي هذا عررته. ومن خشي الله عظمه ومن عظم الله لم يخالف أمره ونهيه. قفك إلهي كبغد إلهي ووينيا سبحانه وتعالى قف إلهي وينينا إلهي أمر كيسة يديد مديسة من بخلاف ما هي. صفة أفرادنا وتقوى الله ويبلارن تهي ودين تودني لغو عمل فله وقفك حليه سنبتهاي نقطه وقلبي كيسي عرب كيسي حبني سباي ماموشة. صفات كان السادركت ويسكن نقنيان إلهينا سبحانه وتعالى وتشهدوا كلا يكوع العلن تيده ولترسخ في قلب العبد وليتصف العبد جميع خلال الخير والصفات الحسنة وسيادونك قلبي سايودكته وادونك وصفوبه صفات كوناك أردن قفك أفرتا صفة لغاية فهو من الفائزين كوا قول استايو كمديهاي. فراجع نفسك يا عبد الله وحاسبها نفط هذا ديم وقول نقو حسابي كم لك من هذه الصفات. صفات كاينتات كايستا هل كانت كقاردي صفات كاس انت يبا كام مقن انت كام مقن وحي كالام مقن تاي قول صفات كاينتات كايستا وانت تقوشي كايسته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله وحين قرأنا حقيقة الفوز قوش دبها وحيتهاي وعلمنا من كتاب الله صفات الفائزين. إلهي كتاب كيسنا وحين كبرناي تلمامها ونكسنا إليه ددك قوش دبتا قارية. فماذا أعد الله للفائزين الذين حققوا هذه الصفات؟ إلهي محود دياريه كوا قول استدبهان كوا صفات كنوعا سيا شيء
أولا أعد الله لهم الفوز بالمرور السالم على الصراط والنجاة الآمنة من النار. إلهي سبحانه وتعالى وحو دياريي إنay nabadqab ku maraan biriishka ilaahay jahannamo u duldhigay ee dadka oo dhammi ay dulmari doonaan. naartaa ka hoosaysa ee dadkii maray qaarkood lagu rasaynayana inay ka badbaadaan buu ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey. ثم بعد ذلك دخول الجنة والفوز بما فيها من النعيم المقيم الدائم الأبدي. intaa waxaa ugu xiga inay jannada ku guulaystaan iyo waxa ilaahay naciim u dhex dhigay, naciimkaasi oo ah mid abadiya oo aanay ka gaboobahayn, aanay ka guurahayn, oo aan ka go-ahayn, wax dhibaato ah iyo waxay saluugaanna dhexdiisa aanay arkahayn. وقد وصف الله هذا في القرآن الكريم فقال إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إلهي بان نعيم كاسي سفيي المتقون الذين عملوا بهذا الدين ku ilaahay diintiisa ku camal falay ee uu hoggaansamay ilaahayna ajiibay nebi maxamedna adeecay waxay leeyihiin mafaaza makaana fawz, meel guuleed bay taagan yihiin, meel qof guulaystay inuu gaadho. waa beero cinab baa ku yaala, wa kawaaciba atraaba xuurulcayn dhalinyara, wa kaasan dihaaqa koob buuxa oo khamriya oo aan lagu sirqaamahayn. maqli maayaan jannada dhexdeeda hadal bilaa macno ah, mana maqlayaan been iyo wax la mid ah. waxaasoo dhammi waa abaalmarin ilaahay xaggiisa ka ahaatay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku abaalmariyey sifaadkii wanaagsanaa ay lahaayeen adduunyada markay joogeen. maa acdamahu min xaal wamaa atyabahu min ma'aal. alla xaalkaasi wanaagsana ciribta noocaasiina fiican ah. yowma tara almu'miniina waalmu'minaat yascaa nuuruhum bayna aydiihim wa biaymaanihim bushraakum alyawma jannaatun tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha dalika huwa alfawzu alcadiim. nuur baa hor socda muuminiintii iyo muuminaadkii, midig iyo dhinacyada midigtana ka socda. waa loo bushaaraynayaa. waxaa maanta laydinku bushaaraynayaa waa janno. jannadaasi waa sidee? webiyaal baa qulqulaaya dhexdeeda, webi malaba, webi caana, webi biyaa, webi khamriya, oo kii lagu sirkhaamaya adduunyada aan ahayn. khaalidiina fiiha, way ku waarayaan, ka dhiman maayaan, kana bixi maayaan. hal turiidu lfawza ya cabdallah, ma doonaysaa guusha weyn? dalika huwa alfawzu alcadiim. halkaa inaad gaadho oo kuwa aad ka mid noqoto ayaa guusha weyna. ina aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaat lahum jannaat tajri min taxtiha alanhaar dalika alfawzu alkabiir. kuwa laga helay iimaan, tawxiid iyo camal saalixa, ilaahay wuxuu leeyahay abaalmarintoodu waa jannooyin, webiyaal baa hoos qulqulaaya. ma doonaysaa guusha dhabta ah? dalika alfawzu alkabiir. guusha weyni waa ta ah. hada huwa alfawzu alacdam walgaayat alkubraa. guusha weyni waa ta ah. meel la gaadho oo makhluuq gaadho, halka u sarraysaana waa halka ah. jannooyinkii bay galeen. allaha samooyinkiiyo dhulalka abuuray raalli ahaanshihiisay ku guulaysteen. farixuu biqurbih, u dhowaanshihiisay ku farxeen. taladat acyunuhum binnadari ilaa wajhih, indhahoodu waxay macaansadeen ay ku doogsadeen ilaahay inay arkaan subxaanahu wa tacaala. laa naciima acdama min hada naciim. ayuha alcabdu lmuslim, kun mutadakiran lihada almaqaam daa'ima fii ayaamika wa layaalik. weligaaba maqaamkaa mid xusuusan ahaw
maalin kastoo adduunyada kugu soo marta iyo habeen kastoo gabalkiisa uu ku dhaco wakun aakhidan bilasbaab allatii yakuunu biha alfawzu alacdam asbaabtaa lagu gaadhaya guusha weyne dhabtaa ku dadaal faina rabbaka subxaanahu wa tacaala qaal ina hada lahuwa alfawzu alcadiim limili hada falyacmal alcaamiluun janno inaad gasho naar aad ka badbaado ayaa guushii weynayda taasi ayaa mudan dadka shaqaynaya tabcanaya daalaya inay ku daalaan oo ay ku tabcaan oo ay arinta noocaasa u shaqaystaan nasalu allaha subxaanahu wa tacaala an yudkhilana aljanna wa an yujanibana annar nasalu allaha subxaanahu wa tacaala an yakfira lana waliaabaa'ina waumahaatina وللمسلمين والمسلمات اللهم إنا نسألك الفوز الأعظم ونعوذ بك من الخسران العظيم اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا اللهم يا ربنا يا رحمن نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تسقينا الغيث اللهم اسقنا الغيث اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع والعطش والقحط والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أنزل علينا بركات السماوات اللهم أنزل علينا بركات السماوات اللهم أرسل الغيث علينا مدرارا اللهم أنزل الغيث علينا مدرارا اللهم لا تجعلنا من القانطين اللهم إننا دعوناك فاستجب لنا فقد وعدتنا الإجابة اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا اللهم استجب لنا ولا تجعلنا من الخائبين الخاسرين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد حميد مجيد حميد مجيد حميد مجيد